mashruuc lagu daahfuray guryo raqiis ah oo ay dowladda Kenya u dhisayso shacabka danta yar ah ayaa maanta lagu qabtay xaafadda Islii. daahfurka mashruucani ayaa waxaa ka soo qayb galay shacabka, guddiga ganacsatada, xildhibaanka dowladda hoose ee Nairobi Usmaan Cadowi iyo weliba Yuusuf Xasan oo degmada ku matala baarlamaanka waddanka Kenya. madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay bilaabay mashruucani guri u dhiska shacabka dalka, taasoo uu ku doonayay in qof walba uu helo hoy wanaagsan. maanta ayaa shacabka Soomaalida ku nool xaafadda Islii la siiyay fursadan ay ku heli karaan guryo wanaagsan oo qiimo jaban. guryahani ayaa waxa ay ku yaalaan agagaarka xaafadda Bangani. maanta waxay xaflad oo lagu daahfurayo dadka danyarta ah magaalada Nairobi degan ee misne Kenya oo dhan in ay guryo ay lahaan karaan oo guryo ay raqiis ah oo dawladda ay dhisayso ay ka faa'iideysan karaan oo ay gadan karaan oo jaban ay ku gadan karaan. marka taas ayaa loo soo bandhigay reer Islii oo xaafadana oo hadda guryaha laga dhisay waxay ku taalaa Bangani oo marka inta dadka ay ka faa'iideysan karaan oo guryahaas oo raqiis ah ay gataan ayaa maanta meeshaan la isku weyn. magacaygu waa Umar Ahmed, isku duwaha guddiga ganacsiga Islii. maanta bandhigan meeshan ka dhacay wuxuu ahaa bandhig guri iibsi ama guryaha dawladda ay dhisayso oo raqiiska ah ayaa waxaa loo soo bandhigay shacabku sidii ku iibsan lahaayeen iyo guryuhu noocay yihiin, lacagtoodu intay tahay iyo meeshay ku yaalaan. waxaas dadka loo sharaxay. marka guri waxay ku yaalaan Bangani oo police stationka Bangani ay ku dhigan yihiin. waa guryo aad u badan oo waxa weeye ilaa 1500 oo qoys waaya ama 1600 oo qoys. hadda waxaa banaan intii kale oo dhan waa la qaatay, laakiin waxaa banaan ilaa 600 oo qoys ah dhiman. no actually waxaa dhiman 450 qoys baa dhiman, intii kale waa la qaatay. marka tiibaan shacabka loo sharaxay. dadweynuhu Soomaaliyeed mayna garanaynin, dad yar baa ogaa. waxaa loo maleynayaa guryahan in dawladdu ay dhisayso oo loo dhisayo dadka dawladda u shaqeeya kaliya, saasaa loo maleyn jiray. marka hadda markii la ogaaday inay u furan tahay private oo ganacsigu dadkooda iibsan karaan, nin kastoo iibsan karaa inuu soo galo, taasay marka shacabku u soo bandhigayeen. dadkiina aad ba ula raqiyaaqeen oo u qaateen oo warbiximo u qaateen sidii u iibsan lahaayeen. dukaamaha laga furi doonaa. marka xaafadan si aad awoodeeda iyo dhaqaalaheeda aan ula sii wanaagno waa inaan kaalin weyn ka qaadano arrinta doorashooyinka oo qaarka cod bixinta dadku ay qaataan 4 cisha dhiman. actually 5 cisha dhiman, 5 cisha inay ku soo qaataan doorashada. dadka ID-ga haysta oo weli qaadan inay qaataan si ay doorashada u qayb galaan. Pillars of the president's development project, development ideas, public health, affordable housing, industrialization, and so on. So this is one pillar of that. And you have come to the right place because this is one of the fastest growing economies in our country. Islii is a major economic hub, a major contributor to ugu dambeyntii mashruucani guri u dhiska uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ka bilaabay gudaha dalka Kenya ayaa galay sanadkiisii 2, taasi oo ay ka faa'iideysteen Soomaali badan oo u dhalatay dalka Kenya. Cabdiraxmaan Atore, Nairobi.